Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Ku soo dhawowda qadaha Ramadaanka qaybtii shanaad. Caawa waxaan ka hadlaynaa caadada xun ee afurka iyo sida nafteennu ay xakamaha u lumiso. Marka la gaaro waqtiga afurka, waad gaajaysan tahay, waad haraadsan tahay, waadna faraxsan tahay, maadaama soonkii maalintii aad soo gabagabaysay. Miisku wuu buuxaa, cunto noocyo kala duwan ah ayaa saaran. Naftii aad maanta oo dhan xakamaynaysay ee aad baraysay sida loo sabro, loo adkaysto, ayaad mar qura fasaxaysaa. Waxba kuma jabno, laakiin waa caado xun oo caafimaadkaaga aan u wanaagsanayn. Maxaa yeelay cuntada marka aad cunto waad daalaysaa, waad caajisaysaa, waadna cuslaanaysaa. Waa imtixaan nafsi ah iyo mid caafimaad. Diintu waxay noo sheegtay in soonku ujeedkiisu yahay taqwo, xakamayn iyo miyir. Haddaba, haddii aad maalintii nafteenna aan xakamaynay, maxaa keenaya inaan hal mar fasaxno? Rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku bilaabi jiray biyo iyo timir marka uu afurayo. Ma ahayn oo keliya sunne ee waxay ahayd xikmad caafimaad. Marka caloosha saacado badan ay maran tahay, haddii aad si degdeg ah aad u buuxiso oo cunto badan aad cunto, calooshu waxaa si lama filaan ah ay u kala baxdaa ama ay u weynaataa. Dheefshiidku wuu adkaadaa. Dhaqaatiirtu waxay sheegaan in sokorta dhiigga ay si kedis ah kor ugu kici karto. Qofku wuxuu dareemaa daal iyo culays, laakiin haddii aad si tartiib ah cuntada u cuntid, waxaa laga yaabaa inay wax badan kuu fududeyso oo caafimaadkaaga u wanaagsanaado. Jirku si nabad ah ayuu u shaqeeyaa, dheefshiidku wuu fududaadaa. Waxaa iska ilaalinaysaa inay caloosha ku xanuunto ama uu kaa ilaalinaya caloosha ku xanuunto ama aad daal dareento. Xusuusnow, maskaxdu waxay qaadataa qiyaastii waqti ay u baahan tahay si ay u fahanto inay dheragsan tahay. Haddii aad degdegsase, waxaa markaasi imaanayo in aad ka hormarto fariintaas. Afurka ha u arkin jebinta xakamaha nafta ee u arag inay tahay abaalmarin ay naftaadu kasbatay kadib gaajo maalin dhan ah. Si naxariis leh u quudi naftaada. Ramadaan mubaarak.